waxaa maalinimadii shalay xarunta ganacsiga adduunka ee magaalada Dubai ee wadankani isku taga Imaaraadka Carabta lagu soo gabagabeeyay shir caalami ah oo ay soo qaban qaabisay dawladda Hong Kong isla markaana looga hadlayay maalgashiga qaaradda Afrika wuxuuna shirkani ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii loo maalgashan lahaa wadamada qaaradda Afrika iyo sidii la isku bari lahaa ganacsatada reer Hong Kong iyo ganacsatada ka soo jeeda qaaradda Afrika ganacsatada reer Hong Kong ayaa waxay si weyn u daneynayaan sidii ay u maalgashan lahaayeen wadamada qaaradda Afrika shirkani looga hadlayay maalgashiga qaaradda Afrika ayaa waxaa lagu casuumay ganacsatada ka soo jeeda wadamada qaaradda Afrika iyagoona si aad ah u soo dhaweeyay ganacsatada reer Hong Kong maalgashiga ay doonayaan in ay ka sameeyaan qaaradda Afrika intuu shirkani socday ayaa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee wadankani isku taga Imaaraadka Carabta isagoona halkaasi sheegay kheyraadka wadankeena Soomaaliya alla uu ku maneystay iyo faa'iidada ugu jirta ganacsatada reer Hong Kong in ay maalgashtaan wadanka Soomaaliya haddaba shirkani looga hadlayay maalgashiga qaaradda Afrika markii uu soo gabagaboobay ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka ganacsatada Soomaaliyeed ee wadankani isku taga Imaaraadka Carabta isagoona inoo sheegay faa'iidada ugu jirta wadankeena Soomaaliya shirkani looga hadlayay maalgashiga qaaradda Afrika Bismillahirrahmanirrahiim Maxamed Jirde Xuseen waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka Business Council-ka Somali Business Council Dubai horta wax badan baan ka faa'iidnay Hong Kong cid kasta way taqaanaa inay tahay xarun weyn oo ganacsi ah laakiin daatada bixiyeen iyo tirooyinka sheegeen wax aad uga weyn baa waxaan filaynay waxa China iyo East ka laga iibsado iyada wax badan baa la soo mariyaa wixii laga iibinayana waxa la mariyaa Hong Kong waa suuq weyn billion iyo badhka Chinese ka ana waa center alaabta meesha doonaha lagu sameeyo waxna waxay ku sameeyaan gudaheeda wax badan dibadda lagu sameeyaa marka waa suuq weyn oo aad u daneynayana Afrika haddana suuq la shaqeysta marka Soomaali haddaan nahay way daneynayaan xooga Soomaalida waa arkeen iyo dhaqaalaha way daneynayaan inay kobciyaan oo ay saani la isku xilmo marka waxaan rajaynaynaa inaanu haddaan nahay Business Council-ka cilaaqaadka yar u xoojino cidii danaynaysa marba waxay la qabsan karaan kulankan maanta wuxuu ahaa kulan ay isugu yimaadeen Hong Kong Business Community-ga iyo some African Business Councils-ka oo lagaga hadlayay maxay ahayd arrimaha ganacsiga iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa sidii investment wadanka saaba dadka ganacsatada ee matalaya inay ganacsatada kale ay soo jiisaan Somali Business Council ama dadka Soomaaliyeed community-ga Soomaaliyeed Dubai ku nool ee ka soo qayb galay markaa waxay isku xoojinayeen inay maxay ahayd soo jiitaan dadka ganacsatada ee shirkadaha waaweyn ee Hong Kong ka yimiday iyo dadka meelaha kale inta ka yimiday si ay maadaama Soomaaliya maanta nabad iyo wanaag u ka jirsamay oo ay maxay ahayd saadaashu aad u fiican tahay inay xagga dalkooda u jiidaan maxay ahayd ganacsiga oo investment laga sameeyo waxa lagaga hadlayay iskaashiga ganacsi ee Hong Kong iyo Afrika Soomaalidu aad bay uga soo qayb gashay waxyaabo badan shirkado badan oo reer Hong Kong iyo Chinese ba ka soo qayb galay dad kale oo ajnabi ah ka soo qayb galay runtii waxaan loo arkaa Chinese aad u wanaagsan bay ahayd oo muhiim ah oo dabcan dadka Soomaaliyeed muhiim u ah ganacsatada Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan oo ay halka xiriir badan ka helaan oo ay la xiriiraan maanta adduunyadu China hogaamin doona dhaqaalaha sidaa darteed way fiicneedo good chance bay ahayd anaga waxaan u nimid inaanu ka qayb galo shirkan arrimaha Soomaaliya shirkan wuxuu ahaa shir isbarasho ah waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay dawladaha hormaray ay si weyn u daneynayaan sidii loo maalgashan lahaa qaaradda Afrika oo ay ku duugan tahay kheyraad fara badan